بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan u joogno magaalada Kismaayo munaasabada xarika jarka xafiiska wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Sona Jubbaland mudane wasiir iyo agaasimaha guud iyo dhammaan mas'uuliyiinta halkan joogta waxaan aad iyo aad kaga mahad celinaynaa fursadan qaaliga ah waxaan rajaynaynaa in halkan maanta uu ka bilowdo safar waqti dheer socon doona kaasoo u sahli doona in macluumaadka rasmiga ah ee ka jirta Jubbaland ay dunidu ka heli doonto wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Sona taasoo soo afjari doonta waqti maaragtay ku dhawaad 30 sanadood ah oo xogta laga helay dalka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanadan aysan jirin meel adduunyada ay ku kalsoon tahay oo laga xigto waxaan rajaynaynaa marka in furista xafiiskani ay inoo sahli doonto in war urursan oo xaqiiqada ku saleysan laga helo deegaanadan sidoo kalena ay fursad u noqon doonto saxafiyiinta jooga gobolada Jubbaland in iyaguna ay si sahlan ku heli doonaan wararka dalka intiisa kale ka jira iyaga oo hadii Ilaahay yiraahdo aan u sahli doono in ay xubin ka noqdaan maaragtay macaamiisha Sona ee xaq u leh in ay wararka adduunka ay ka soo ururiso hela waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdirasaaq Cali Yuusuf الحمد لله مدن وزير iyo mudanayaal aniga ku hadlay magaca wasaaradda faafinta federaalka mas'uuliyintooda wasiirka dawladda iyo wasiir ku-xigeenkaba waxa farxad iyo muhiimad noo ah inaan maartay maanta halkan ka furno xaruntii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona oo runtii muhiim u ah xiriirka labada wasaaradood federaalka iyo magaranaysa Jubbaland warbaahinta qaranka runtii waxa hormuud ah wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona sida la socotana wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxa la aasaasay sanadkii 1964 waa wakaalad aad u facweyn gobolada dalkana waxay ku lahayd xafiis aad u waaweyn ayada ayaana mas'uul ka ahayd federaalka marka laga hadlayo arrimaha wararka iyo waxyaabaha khuseeya marka mudane wasiir booqashadeedu intaas la xiriirtay waana ka mahad celinaynaa runtii ilaa shalay ilaa xalay soo dhaweyntii gaar ahaaneed oo naloo sameeyay aniga iyo tiimkii wafdiga wasaaradda waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo waa markii ugu horeysay oo muddo 25 sano ah oo markii ugu horeysay oo wakaaladda wararka Soomaaliyeed Sona laga furo halkan tan iyo burburkii waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inay wakaaladdu hormuud u noqoto xiriirka labada hay'adood federaalka iyo maamulka Jubbaland waxaan rajaynaynaa dhinaceena insha Allah taala wixii kaalin ah inaad gudan doontaan annagana waxaan ballan qaadaynaa inaanu magaranaysaa wixii ku saabsan xiriirka iskaashiga labada wasaaradood haddii aan leeyahay xagga tababarada haddii aan leeyahay xagga warisdhaafsiga haddii aan leeyahay xagga qalabka runtii inaad maartay kaalinta federaalka uga aadan laga furo dowlad goboleedka Jubbaland waxa kaloo mar guul noo ah dowlad goboleedka ugu horeeyay ee xafiiskaas laga furno in aan anaga nahay runtii warar badan oo waxa jira iska sii daayaan wareeyaasha oo haddii hadhow la weydiiyo xagee ka soo xigtay la dhahan oo meel uu sheegi karaan lahayn meesha ka soo xigtay iyo xaggan ka soo xigtay uu dhigi karan wakaaladda wararka ee Sona waa wakaalad warar oo Soomaaliya ay lahaan jirtay sidoo hadda sheegay agaasimaha guudna 64 la asaasan filaya soo saas ma runtiina waxay dalka Soomaaliya u qaban doontaa wax aad iyo aad u ballaaran anaga ka Jubbaland ahna waxa naga go'an ka wasiir ahaan booliska wasaaradana ah in la hormariyo warbaahinta waa waxa kaliya runtii 2 daqiiqo gudahooda baash caalamka dhan ku tusi karo waxa aad qabatay ama waxa aad markaas yani damacsan tahay inaad sheegto marka waxaan leenahay soo waad mahadsantihiin runtii anagu magaalada horumar leedahay waqooyi ahayd inay Kismaayo ku soo hormartaan aad ugu faraxsanahay waqooyi hadda waa anaga ka saddexaad aan ahayn muqdisho hadda anaga labaad ka ah dowlad goboleedka ugu horeeya Puntland oo ugu horeysay laakiin dowladda Soomaaliya markay jirtay magaalada madaxda saddexaad magaalada Kismaayo ahayd ku soo dhawaada waa nabad wayna fiican tahay marka waxaan idin leenahay wada shaqeyn wacan haddii alla idmana waxaan rajaynaynaa inaan hor ugu sii talaabsan doono ma aha xafiiskan kaliya wax la furi doono haddii la yiraahdo annaguna xafiisyan ku yeelan doona ama aan ku yeelanaba muqdisho federaalka nagala siiyay xafiisyada wasaaradda nagala siiyay insha Allah waxay la mid tahay in la wada shaqeeyo anagu waxaan nahay dawladda xibinka ah dawladda federaalka waxaana guul noo amaanta inaan xarga ka jarno xafiiskii wakaaladda wararka ee Sona ee dowlad goboleedka Jubbaland waana mahadsantihiin insha Allah waa fureen haddii la yiraahdo